وحشركين دارين يا داوود يا خير ديرتين واتي قرتين دورك نبدي كده قال إني بيني كلا دبغالان دمركي بربارتيني بعدور لحد قلي دجالكي عولادي بين دمكوسيين waxaan nabad ku wada daaqaynaa dooxadii mudug gaalkacyo labadeeda daan la isu soo durug gaalkacyo labadeeda daan la isu soo durug reer mudug waxay doonayaan dib u heshiisiin haddii waa dagaal lagu ogaa waxay u kacay waxay doonayaan qarankii oo la isu soo dumo diinta iyo dhaqanka ay rabaan ay darajo siiyaan dastuur lagu shaqeeyay rabaan oo daacad loo qoro waxay doonayaan shacabka oo madaxda doorta dugsiyo kuleejay rabaan daha loo furo dayarto waxbaratay rabaan oo dollar aan bixin waxay doonayaan booliska roodada daa'ime waxay doonayaan laamiyaal dariska gaara dekadiya garoomay rabaan dunidu yaabtaa dalxiiskii ugaartay rabaan oo daawam loo xiro dalagii beerahay rabaan oo daawam loo xiro oo dalxiiskii ugaartay rabaan aadmi daawado waxay doonayaan xeebaha lagu dabaashaa waxay doonayaan xeebaha lagu dabaashaaye intaas kuma daraayo oo waqtigu way dilay inta kuma daraayo waqtigu way dilayaaye dalka iyo dadkeena basaan ugu duceeya waa mahadsan marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo tiimkii reer Boston soo dhaweynta afartii bari aan joognay magaaladan oo Cabdulqaadir hogaaminayay tiimkiisii Eseldan iyo mataanahooda mideynta from Canada runtii shambari baa shirkan hadda loo socday anigu hadda magaaladan waxaan joogaa waa shambari سرور في عنيو يمجال في عنيو أزمات في عنيو وأنت رمضان سلويني حصص فربان بوسطن إلى ينون نقطة تاسوا ما دعلنت وحوسي يقول بيا ما بدنا مقعابي كراهة دي هذا بلعبه مقعيدي ما يقولوا ولا سوقت يقول لا لكن أنت هلا عدل سيد الله بدنا مقعابي مقعينت وديننا وحنقول بيا nabadda mudug ee lagu aynu caawa halkan munaasabada ugu weynayno tahay maalmahan aynu ku mashquulsanayn nabadda mudug waad ogtihiin oo Soomaaliya markii ay dhibku ka bilowdo wuxuu ka bilowdo gaalkacyo mudug buu ka bilowdo mudug labada qoys oo degan ayaa la Soomaaliya cudurkii dhexdooda yaalla ku faafiyay taasina tan ilaa hadda laga soo kooban leeyahay heshiisyo badan baa la isku dayay kii ugu habboonaa oo ugu istaagay oo la oran karo la mahadiyo wuxuu waa kii 1993 oo labadii leader gobolka ka soo jeeday Cabdullaahi Yuusuf Ciidiid ay ku mideeyeen oo magaalada dib loogu soo degay heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis kaliya Soomaali ay leedahay oo aanan hay'ado iyo sabafallo iyo qolo kale ay wada ku lahayd taabagalay nasiib darro muddo ka bacdi labadooda markay hawada ka baxeen ba muddo ka bacdi heshiiskii sidii baad wuxuu ugu soo loo magaalada inay noqoto mid qaybsan isku dayo fara badan oo isku dayay in magaalada dib loogu soo celiyo mar nooc kale oo heshiis ah oo kulligood mid la oran karo mid walba meel soo mariyay December 17 waxa aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo sababta December 17 ballanto inoogu tahay waa xusid munaasabadii gaalkacyo ay u suurto gashay inay labada dhanba isu yimaadaan oo heshiis hadda lagu wada joogo ay saxiixaan heshiiskaasi marka wuxuu lahaa dadaal badan wuxuu lahaa caqabado fara badan laakiin ilaahay wuxuu ka dhigay kii lagu qulbay lagu leeshiyay marka sidoo xaalad walba meel bay ka bilaabataa qoys isku dhiib wadamada hadda ay joogeen Ingiriiska bay ka soo bilaabatay
وعاركس نيو إيجل ونيو بوستن يو ميلبا وليجاسي UK مركي أي ودمنا سودجن نبضيت نصاص وكلام وحوصل على من كقول سوديب وأنا عاوي بوستن كتشوغلو وبوستن مقالة هذا عاوي نوتاي مدة قاعدي تروشكي أما في نوستي نبض هذا أنت أول حيث عاوي بوستن يعني تشوغلو يتضبي توك ديسمبر مرحلة بلا بيسومرتي قدام جوفرنتور حلبانكو سويرو كله مركو هذا كان حالدي انتو جوجي وحسي انتو جو كور قوي لكن كلا كسي هذا بس حسي تعرفي كل تي حرية يا كملها وكوري رجي هذا وحسي وبارا يغلفت ولا أي تحين إلا حصو سراكيشي قدمته وقدم بي على الناصبكي هذا وقدم بي عبد الغني أحمد جيري حري سراكين فنبضل أو سخنف كما قلت مركب وعربة إن هرت الله قرت حولة مسلسل صوب العبطي أول تشوكته مجال بوستن هذا اللي سيبنا وحاء إن أي كل جيل سلا ولا قابلنا كل جيل إنه كملنا هاي وقفنا كجسوا بيري وما أنت نبض مدو جايتهاي متابقلة أربع هنين شكل قبل oo ay mid sal dhigatay u baahan in la sii kubciyo maadaama marka ay wax kasto mudug ka bilowdo sidaas oo kale u wanaagsanaada ay sidaas oo kale ay hadii ay hagaagto ay faafi karto waxaan hadana u fakaraynaa inaynu yeelan karno sida hadeertaan xildhibaanku taabtay rag kale ay taabteen oo si iftiimay waxay tahay mudug hadana inay bilowdo maadaama fidnada Soomaaliya ay ka bilaabatay mudug halka Soomaaliya inuu ka bilowdo oo ay mudug noqoto ishalkeen ku kulmi doono December iyo hadda wixii ka dambeeya inaynu dadka u muujino uqdada baas oo Soomaaliya ka jirto qabiilkaay mudug baa keentay mudugna inay saarto si hadda aynu u fadhino aynu gobolada kale ugu gudubno ilaa iyo Somaliland ilaa iyo Kismaayo wala isku waafaqsan waxa la yiraahdo mudug hadii la heshiiyo Soomaaliya waa heshiis وارن لكن مدقي شيء صح كورته انت الان ينكر لو داري عبد القادر بدكتي وحي الوقت كسوكوب لكن مناسبه دالي iyo munaasabada inoo soo socday vision-keena inuu noqdo dad xaaladda mudug kaliya inay noqoto xaalad in Soomaaliya. Salaam alaykum.